السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal. halkaad iga daawanaysaan waa YouTube channel-kayga Cabdalla Muxya. Maanta maxaa idin wadaa? Insha Allah sida ma aragtay aad ka arki kartaan qoraalka halka ku qoran waxaan sameyn doonaa maanta insha Allah lasagna taasoo ahayd codsigii ugu badnaa ee TikTok-gayga laga soo codsaday mar aan soo geliyay ma aragtay lasagnada sidee loo sameeyaa walaal YouTube ka soo geli marka insha Allah finally videoga maanta waa kan hadduu ilaahay yiraahdo waa isla sameyn doonaa min bilow ilaa dhammaad hadduu ilaahay yiraahdo wax walbo ama aragtay aan ka sameeyay step by step insha Allah u dul istaagi doonaa waxaan rajeynayaa idinkana ma aragtay in aad ma aragtay aad ka wada bogataan hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah like tiina iyo share tiina iyo commentigiina intaba waxay ii tahay dhiirigelin aadan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan mar walba ma aragtay ila socotaan qof wax loo hibeeyo ama la siiyo waxa ugu muhiimsan waqtiga gelinaysaan aad idinkaga mahadcelinayaa waan u qalmataan in dad waqti loo huro ma aragtay dad waqti loo huro waatihi runaantii aad idinkaga mahadcelinayaa waan ku faraxsanahay in ma aragtay aynu asxaabnahay insha Allah isla socod wanaagsan lasagna sameeyna insha Allah lasagna sideeda markaa sameynaysid laba shay oo muhiim ah u baahan tahay waa suugada ama sooska ama maraqsa u taqaanid iyo baashameel suugada ku bilaabeena saliidda isticmaala waa saliid zeytuun saliidana mar walba isticmaali doona arki doontaan kadib basal oo aan si yar usoo jartaan kusoo xijinayaa basasha iska gaduudi ilaa maaragta si fiican ay kaaga gaduudato u kaadi dabkana medium u geyso high ha ka dhigin oo maaragta dheereenin dabka uu kaa gubanayaa dhadhankana wuu ka halaabayaa kadib waxaan kusoo darsanaynaa hilib shiishiidkaas iyo basasha maaragta si fiican isu walaaqeynaa biyo kuma daraayi hilibka biyaha u dhalo keliya u baahanahay intaas markay maaragta isku soo bislaato oo hilibka uu biyihiisa laqo kadib aa maaragtay waxyaabihii aa kusoo darsan raba kusoo darsanayaa maaragtay hilib shiishiidka biyo uma baahno maaragta isagaaba yaryariis iska ah marka biyaha ku darin qaab daruu kaa naqanayaa kadib waxaa ku dareynaa insha Allah wax yaroo maaragtay toon ah iyo wax yaroo maaragta kabsar caleen ah carafaa ka rabnaa kadib intaasaa si fiican isugu walaaqaysaa markay isdhex galaan kadib insha Allah waxaa kusoo dari doonaa xawaajiyada xawaaji alaal xawaaji guriga ku yaala jeceshaa isticmaali kartaa maraq digaag iyo maaragtay iyo maxaa la dhahaa filfil iyo wax yaroo cusba ah intaas isku jira waa waxa aan hadda ku shubay kadib waxaa kusii shubaya yaanyo oo maaragtay aan soo shiiday yaanyada caadiga ah soo shiiday si fiican aan isugu walaaqayaa kadib waxaa kusoo darsanayaa tomato sauce ee dhahaan maaragtay yaanyada la shiidan oo caaga ku jirto traditionalka isticmaalaya waliba dan kadib maaragtay caaga inta ku harta biyaha aan kusoo maaragtay shubaya intaasaa biyo aan u isticmaalaa inteeda kaleete biyo kuma darin wax kale kuma darin intaasaa maaragta si fiican isu walaaqee waa dabooleysaa kadib maaragta markay si fiican isku dhex galaan ay soo badbadaan diyaaruu ku yahay maaragtay isagaa biyo dhalaayo biyo uma baahnid biyaha isaga darin qaab daruu kaa naqanaya maraqeena ama suugadeena waa noo diyaar kadib waxaa u guda galaynaa baashameelka saliidda u baahan tahay ama waxaa u isticmaali kartaa subag ani saliid saytuunka isticmaalaya kadib waxaa kusoo duldaray bur dabka u gaabay tii kale burka kuuskuus oo kaa yeelanaya intaas ay tahay si fiican isu walaaqay saliiddii iyo burkii kadibna maaragtay waxaa sameynaysaa wax yar u kaadinaya aday daqiiqad ilaa 2 daqiiqo camal inta maaragtay si fiican isku dhex galaan dabka u gaabi medium again kan gaabi low ka dhig maaragtay burka tii kale uu kaa kuuskuusanaya kadib maaragtay waxaa kusoo duldarayaa caanahana hal mar ku wada shubin kaa maaragtay kuuskuusmaya isagana sidoo kale hadaa maaragtay hal mar caanaha ku wada dartid tartiibkaas ugu dar adigoona walaaqaayo secretkaas keeta maaragtay si fiican meel ku qor kadib waxaan kusoo darsanayaa wax yaroo filfil ah iyo wax yaroo maaragtay maxaa la dhahaa basasha oo maaragtay shiidan iyo toonta shiidan intaasaa maaragtay si fiican isugu walaaqaya baashameelkeena waa noo diyaar waaba intaasba wax kale ma ahan cusbaa ku darsan kartaa maaragtay maraq digaaga ku darsan kartaa maadaama suugadii aan maraq digaag iyo waxyaabahaas kusoo darnay baashameelka kuma darin baastada isticmaalaya waa baasta maaragtay oven ready waa inaa karkariyo ma iga rabto diyaaray ku tahay sideeda oven ku gelinaysaa number 1 maaragtay birta
soo qaadanaysaa suugada ka bilaabee waxaa ku xijinaysaa in maaragtay dhinacyada dhan wada gaarsii baastada ku xijinaysaa baastada markaa ku xijisid haddana maaragtay suugada ku xijinay stepka saa umar insha allah si maaragtay lasaanyadaada kugu qurux badnaato kadibna kor markaa maaragtay suugada kaga daro waxaa kusii dul darayaa muxuu ahaa baashameelkii maraqi maxaa la dhahaa sooska cadaa baashameelaa la dhahaa kadibna cheese ama farmaajo saa u taqaanid mozzarella isticmaalaya saasaa ugu soo celcelinay inta dabaqay aa rabtid adigaa yaqaano ani ilaa 3 camalaan ka dhigtay oo maaragtay familkaaga sizekiisa ku xiran tahay marka stepkii aad ku soo celcelinaa marka baastada suugo baashameel anadan kadib maxaa la maaragtay cheese waaba intaasba intaa waxaan sii sameynaysidna foornada sii shido foornada 350 u geystay yani inay preheat sii noqoto inay sii kululaato si maaragtay markaa howlahaaga dhamaystid hore aad kaga gelisid maxaa la dhahaa in lasaanyada haddaa ku daartid oo maaragtay oo maxaa la dhahaa markaa alaabtaadii waxaaga diyaarsatid aad daartid oo hore ka gelisid waqti maaragtay ay kugu qaadanay marka inta alaabahan sii samaysanaysid ovenka kuu sii shidnaado ovenka foornadan ka wadaa foornadaada kuu sii shidnaato 350 Fahrenheit gey 30 daqiiqo keliya ku haynaynaa alaab waxaa kuu soo baxayso aan innaba caadi ahayn maaragtay wixii ku celcelinooya layerka suugo baastada suugo baashameel cheese ama farmaajo intaasaan ku celcelinayaa ilaa maaragtay inta dabaqay aan u baahanahay ama inta layer ee aan u baahanahay kadibna foornada gelinaynaa 30 daqiiqo u qabsanaynaa kor iyo hoos maaragtay iyadoo guduudayna soo bixi doontaa insha allah inta ee lasaanyada foornada noogu jirto insha allah waxaa idinkaga sheekeyn doonaa yani maaragtay qof walba markuu Mareykan imaanayo waxaa niyadiisa ku jiro ama ha looga sheekeeyo ama isaga maaragtay maskaxda ha ku haysto ani markaa Mareykan imaanaya waxaa maskaxdeeda ku jirtay yani ama aan aaminsanaa dadka cadaanka oo dhan inay taajiran yihiin baade markaa Mareykan imaada lagu barcabal joogay yar gaariga uu wadaa maaragtay lightka qabta uu istaagay markaasaa waxaan arkay nin cadow geeska maaragtay laamiga taagan oo tuugsanayo weligii isma dheheenin nin cadaan ah oo Amerikaan ah oo Mareykan joogo ama maaragtay homeless oo tuugsanaya arkaysaa waa yaabay ninkii wiilkii weydiiyay la socda waxaan ku dhahay maxaa khaldan ninkaan maxaa ku dhacay waa homeless oo maaragtay noloshu ka dhacayo maaragtay meeshaan wuxuu rabaa in maaragtay la caawiyo ani waa fajacsanahay waxaa taaganahay qof Mareykan joogo oo weliba cadaan ah oo Amerikaan ah soo homeless u noqon karaa maba yani waxyaabahaas arkay maba isdheheenin fahanta kadib markii aan maaragtay arkay jaamacadan bilaabay jaamacad markaa bilaabay class English aan qaadanaya waxaa la yiri marka qof walba warqad soo qoro warqadii aan qabtay waxaa ka qoraday waxaa ka aaminsanaa Mareykan iyo waxaan arkay macallimada marka warqadeedii ka heshay ardadii iyo maaragtay soo jeedisay tiri Cabdullaahi Saan soo qoray kuwa marka Mexican iyo kuwa maaragtay wadamadan Afrika dariskeena ka imaadeen anaga waxaan aaminsaneen Mareykan in lacag laga xaqaa aaminsaneen anaga keligii Soomaalida keligeena oo maleynaayo waxyaabahaas inay aaminsanaa show dadkan kaleeto oo iyagana maaragtay Mareykan banaankeeda ku nool waxaasay ka aaminsan yihiin Mareykan marka adi commentiga noo qor waxaa ka aaminsaneed Mareykan iyo waxaa ku aragtay sidoo kale insha allah in mar walba oo saan camal foornada waxaan ugu sameynayo inta foornada maaragtay 25 daqiiqo camal ku jiray ama 30 daqiiqo 30 daqiiqo meel iska fadhineen waa inaan maaragtay ismada daalina sheekooyinkiina xagga maaragtay Instagramka igu soo dira ama barnaamijka ama xala dhahaa camal la tali ila tali insha allah dhaxtaalka intaasaan ka dhigaynaa hadduu ilaa yiraahdo anaa hadda maanta idin bilaabo sheekooyin kalena waa idin haya insha allah barnaamijyada kale xiga insha allah maaragtay aan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu ilaa yiraahdo 30 daqiiqo kadib sidaan quruxda badan ee kusoo baxday kalarkaas dahabiga ah ee aanan gubanin qayriinkan ahaan ee kusoo baxday waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontaan insha allah iyadoo kulul maaragtay lagu goostaa hadday maaragtay qabowdo qaab malahan sidoo kale waxay ku fiican tahay in la cuno iyadoo maaragtay yara kulul
hadday mar qabowdo baashaaneed qaab ma lahaanaysa ma fahanti marka intay kulushahay ha lagu kala baxo alaabtaana meeshay marta ilaahay idinma marsiiyo intii haysato ilaahay ha u barakeeyo intaan haysanin ilaahay ha siiyo insha allah waa isla tijaabin doonaa anigana commentiyan ka bixin doonaa xaajiidana commentiya ka bixinay ma fahanti alaabta haddaysan sas u jijiidmaynin hakaa amuudo ma la dhihi jirno waa in lasaanyada sas u jijiidmataa marka commentiya ka bixinayna insha allah bismillah. إنما عادي معها 1 to 10 أنا محاسين لها 8.5. reason كأولها إنه حياتها جيس كأينا معها جيس بدنا وبهنت جيس كما عرفت أنت استعماله لكن بدن كذا إنما عادي معها حاجة إنه إلى تجابني أيضا كومنت كذا ما عرفت سوينا أي هني أنت تكبر cuntada caadi ma ahayn maasha Allah. daacada laga rabaya meeshan maaragtay videogan is recorded. I know cuntada waxay ahayd 10 1 to 10 meeqa siine 12 out of 10 caadi ma ahayn it was so juicy and yummy. ani 8.5 aan siiyey Why? sababta waxay tahay cheeseka maaragta xoogaa iga yaraa anuu Cheese. enough oo ila ahay cheeseka waa yaraay waxa yar maaragtay inaan ku daray ahayd oo maaragtay most of way ga dhamaaday insha allah next time maaragtay xaajiid 10 dhaaday insha allah idinkan waxaan rajeynayaa inaad video ka heli doontaan aadaan salaamaya waa ku mahadsantihiin muuqaalka daawashadiisa haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir haddii aad hore u joogtane minikaaga waaye subscribe-ta maaragtay like-ta commentiga intaba waxay ii tahay dhiirigelin aadaan idin salaamaya aadaan u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu